بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج كيني دبك هذا القيبتان waxaan kaga hadli doonaa ama aan ku eegi doonaa safarkadiisa oo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed Ali uu ku tagay magaalada Ankara ee wadanka Turkiga halkaasi oo booqasho uu ku tagay wadankaasi Turkiga sidoo kale waxaa jiray iyadana wufuud kale oo Itoobiya u dirtay wadanka Jarmalka arrimahaasi ayaynu eegi doonaa iyo safaradaasi ay ku kala bixiyeen Turkiga iyo Jarmalka wufuudaasi Itoobiyaanka ah ee ugu horeeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaynu eegi doonaa bal xaaladahaasi iyo safaradaasi waxyaabaha ay la xiriiraan waxaana ila jooga saaxiibkay Jaamac Galad Jaamac Abi saaka waxa uu ka degay wadanka Turkiga maxay tahay booqashada iyadoo wadankiisi uu ololayo uu ku tagay wadanka Turkiga بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جودان بأمة الصوماليات ميل كستي جوجان بوحنا الله السلام الله عليكم إن ده كل مدح ظهرته بقشوي واسميان إن حلقة نكلنا وحلقة اللي جوبه بدني هيوي بقشة ومحن كل هذا أيته كل بميل المارتي قفك مركع ولا يسكو سارية إنه وان كلمة ضيدة يموت كل بماشي ويسليه مركع وحبات كسوهلة يسأله هذا وأكو خصبينه لكن هذا بقشة ثاني إن waxay daba socotaa wada hadal ama xiriir horay muddo aduu 3 toddobaad qiyaastii laga joogo dhaxmaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ku saabsanaa in xaaladda ka soo cusboonaatay dalka Itoobiya ee la xiriirda colaadda in TPLF iyo Itoobiya inta kale u dhaxaysa la xiriirda ayaa maaragtay booqashadani ay daba socotaa in madaxweynaha Turkiga oo hadda maaragtay quwadaha wax isbidahaya ku jira يا واحد مدة إنه يسكت تجابينه إثيوبيا أو مارتي أو ميراث هرنو بكسو جوليستي أو مارتي تو إن ليبيا إيو إن أذربيجان إيو ميراها مركو كسو جوليست هذا نوحر ربع إنه يسكت تجابيه بالبلد المدو أفريقيا تا يجا نفتر كذا إنه مارتي تجابيه أو إن ما دام أي غير قلبيتكو كله جليهين ودور حويان ويسكت ده إنه كعياره حالة مارتي جيسك أفريقيا جودهان جارهان حسرتها كأروسن إثيوبيا أيوة حسكود إنه كل الله لما دولتها رير قلبيتك أو مريكان كإيا إنجليز كإيا أي وجوه الريان فرنسيس كإيا دولتها النوع عاص أي وجوه الريان أيوة حودونيا لنا عيوة كتاجين يهين مويانا لنا عكلا إنه كإستاجو يسوون مركز كل جديد كماها تركيو أو قلك لو أنا استعلم بهذانا أرنتني أي مدينة يسا أو مارتي شينها يروش كا يسوون مركز واحد مدة إنه صار يعليس آت وحوجن iyo maaragtayto dadaal weyn oo ku bixinayo in ay xukuumadda Abiy Ahmed ay sii jirto marka booqashadani waxay daba socotaa wada hadalkii dhinaca khadka telefoonka ahaa ee horay uu u ballan qaaday odaygan muxuu ahaa Erdogan kii hore la jiray Najmuddin Erdogan soma kana waxa la dhahaa Rajab Tayyip Erdogan ha marka ballanqaadkiisii hore ee ahaa Itoobiya wax walba waan ku garab taaganahay yaa muddo hadda maartay kulli hadda isu soo sheegayaan awal hore waxay ahayd moogtahay war social media lagu baahiyay oo wada hadalkii labada dhinac ka soo dhaxbaxay marka hadda marka laga hadlayo waxay ka wada hadlayaan wixii caadiga ahaa ee arrimaha diblomaasiyadda ku saabsanaa baa la soo qoray mooyaane waxaas maartay la sameeyaa kala lama dhihin laakiin arrimihii diblomaasiyadda sidii maartay diblomaasiyadda caalami ahaan qaabka loo isticmaalo ama maartay looga warbixiyo baa uga warbixiyeen oo xoojinta xiriirka labada wadan iyo kor u qaadida maartay iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ka dhaxeeya labada dal iyo waxyaalo noocaas ah yaa la soo qoray laakiin waxay isu sheegayaan iyaga u taalaatay kulli way Turkiga iyo Ethiopia 125 sano ay xiriir leeyihiin baa la sheegaa xiriirkaasi wali Turkiga ma ka sii go'an yahay in Ethiopia xiriir wanaagsan uu la sii lahaado mar walba cidii markaas ku kacdana oo gacan ka siiyo sidii ay ula dagaalami lahaayeen gaar ahaan hadda colaadan ka taagan waqooyiga Ethiopia in uu ku caawiyo hub iyo tasiilaad kale si ay uga adkaadaan kooxdan TPLF horta xiriirka Turkiga iyo Itoobiya ma aha xiriir maaragtay todeel lagu tilmaami karo xiriir wax lagu tilmaami karo ma aha waa wax maaragtay waa wax ka dhaxeeyo maaragtay bulshooyinka adduunka wada degan
mooyaane wax xiriiraho gaara oo iyaga ka dhaxeeya ma jiraan xiriirkan uu sheegayana waxa weeyaan 125 waa xilligii qabsashadii Kamal Atatürk oo maaragtay ama jabkii dawladda Cusmaaniyiinta markii ay jabtay Ethiopia oo markaa boqortooyo ka jirto yaa waxay u dirtay maxaan qof kamid ah boqortooyadii xiriirka la sheegay horta waa midkaas xiriir hadda maaragtay macna leh waxa uu dhaxmaray ee uu xiriir gaar ah oo Addis iyo Ankara ka dhaxeeya xiriir gaar ah oo Addis iyo Ankara ka dhaxeeya oo saaxiibtinimo ma uu jiro oo maaragtay tudee labada qolo nidaamyada ka jiray baa isku nooc ahaa oo marka la fiiriyo nidaamyadii ka jiray ee macangagnimada iyo ku dhisnaa maxaan ku idhaahdaa caburinta ee ay iska kaashanayeen sidoo kalena maaragtay ka jiray wixii la dhihi jiray Warsaw yaa maaragtay ay isku qaab ahaayeen mooyaane xiriir gaar ah oo Turkiga iyo u dhaxeeyay ma aanay jirin Turkiga awal hore xiriir lama lahayn Ethiopia mana maalgashanaynin warshada kuma lahayn dad kama deganayn hadday ka tagi weydo oo maaragtay la fiiriyo maaragtay waxa meesha ka jirahay waa magaalada Harar dadka degan yaa qayb Turkiyiin ku jiraan Turkiguna mar uu maamuli jiray oo xilligii boqortooyada Cusmaaniyiinta ila marka xilliga iyada ana marka dadkan heerarida xaga inta badan qayb ahaan xilliga iyada ana Turkigu wixii uu la dagaalamayay yay ahaayeen qoladan buuraleyda oo maxaan ku idhaahdaa Turkiga oo markaa hogaaminaya Soomaalidii Islaamka ahayd iyo dadkii kale meesha deganaa iyo Oromadii Muslimka ahayd iyo waxa soo dhan wixii la dagaalamay waxay ahaayeen Portuguese iyo Greek iyo dabada ka soo riixay Ethiopia sidaadaba colaada gaamurtay ee u dhaxaysa maxaan ku idhaahdaa Portuguese ama Greek iyo adoo dalalkaas ay dariska yihiin meelaha Qobris la yiraahdo iyo waxa soo dhan waa wax taariikh hore oo soo jireen ahayd meelo kale ay ku dagaalameen halkan ay ku dagaalameen waa taariikh fac weyn oo guuna oo waligeed soo jirtay weeyaan marka dawladda Cusmaaniyiinta markay burburtay ee ay meesha ka baxday yaa boqortooyadii xilliga jirtay ee Ethiopia yaa waxay ka mid noqotay dadkii taageeray maxaan ku idhaahdaa afgambigii iyo burburka boqortooyadii Islaamiga ahayd ee Cusmaaniyiinta xiriirka marka ay ku sheegayaan waa inay taageereen inay burburtay boqortooyadii Islaamiga ahayd xiriirka ma jirin hadan dhowr iyo 10 sano ugu dambeeyay ee uu kanu joogo weeyaan marka ugu horeysay ee Ethiopiaanku ay ka dhex muuqanayaan gudaha dalka Ethiopia haday ahaan lahayd dhinaca maartay maalgashi xoog leh dalka koobaad haduuna ahaan waa dalka labaad ama dalka saddexaad bay noqonaysaa Turkigu ee dhinaca maalgashiga warshaday ku leeyihiin dhul beereed badan bay ku leeyihiin wax badan bay ka sameeyeen oo maartay dhaqaale iyo hanti aad u fara badan yaa meesha ka gashay Turkiga ka gashay marka hadda xiriirkaasi waa u dhaxeeya laakiin xiriir soo jireena oo lagu tilmaami karo xiriir 120 sano soo jiray hambaliyadii loo hambaliyay boqortooyadii burburtay anu xiriir uma aqaan kulli laakiin hadda iyagu xiriir ku sheegayaan iyaga u taala aad baad ma santahay waayahay arinta hadan ku soo noqdo arintan Turkigu suuragal ma tahay in uu caawiyo Ethiopia si dhaba u caawiyo wuxuu leeyahay hubka ugu casrisan hadda adduunyadan inta badan la og yahay gaar ahaan diyaaradaha drone-ka wuxuu sameeyay Turkiga laftiisa lagu sameeyay ama lagu farsameeyay diyaarado casri ah oo baariqdaar ay kamid tahay ma laga yaabaa in diyaaradahaas drone-ka iyo hubkan noocyadiisa kala duwan inuu Turkiga Ethiopia ku caawiyo si kooxdan TPLF hadda dagaalka lagu jiro loogu jabiyo way adag tahay diyaaradahan waa la gadaa dadka lagu caawiyo diyaaradahan kambaniya iska laho samaystay dawladda Turkigu ma aha waxa iyadu leedahay waa kambaniyo weeyaan kambaniyadaas marka macaash bay raadinayaan oo iyo waxan ay ka macaashaan iibkeeduna marka la gaday shuruuc buu leeyahay hubka la iibinayo caalamka waxa jira sharciyo xididaya noocyada hubka la iibinayo iyo dadka laga iibinayo dad mas'uul ma yihiin mise waa dad غير mas'uul Afrikaanku mas'uul ba ma aha qof Afrikaan ama dawlad Afrikaan oo sideedaba mas'uuliyad qaadi karta ma jirto hadii nuclear resource iyo ninka la yiraahdo Abiy Ahmed wuxuu ku dhufanay meesha adigraad buu ku dhufanay bartanka Tigray ku dhufan si xagga baa ugu faahad qof ka baxaa uu soo jirin marka dadan mas'uuliyad ba qaadi karin oo غير mas'uula waxaween haday ka gadaan wax wixii meesha ka dhacay iyaga mas'uul ka noqonaya marka ma u malaynayaan inay ka gadaan shirkadahan waxay rabaan inay shaqeystaan adduunka ay sumcad ku yeeshaan Turkiguna sidoo kale waxay rabaan inay iyaduna waxan shirkadaheedu ay soo saarayaan adduunka inay sumcad oogaga hesho oo ay u suuq geyso yay rabtaa laakiin in caruur iyo dumar lagu laayo maxaan ku idhaahdaa ma aqbalayaan saan filayo inkastoo madaxweynaha Turkigu oo aad yar moodo xogaa inuu salaaf qabo oo maaragtay waxyaalo badan oo uusan ka fiirsanin oo ku dhaqaaqayo meeshan dhibka ka taagan Ethiopia cid kuma soo duulin
dal maartay dal shisheeye uu kusoo duulay ma aha waa dagaal Ethiopia dhexdeeda ah way sababta marka Ethiopia dhexdeeda xukuumadda waxa ku haboonaan lahayd Ankara inay isku daydo Ethiopia ko argagixisay ma wax argagixisay ma jiraan adduunka waxa weeyaan markii dal dhexdiisa dhibaato ay ka dhacdo xal baa loo raadiyaa laakiin ismu qoonin hadii la yiraahdo cid qoonin kartaa ma jirto adduunka laba qof baan laga adkaan karin marka dhowr burar baa u ruqruqay ayo Erdogan dhowr bur baa u ruqruqday meel walba waad ku guuleysan buu isleeyahay adduunka waxa uu haystaa labadii guuleed ee uu gaaray yaa maskaxdiisa ka weynaatay tiibu marka meel walba kula dul dhacaya laakiin waxa weeyaan istiraatiijiyada adduunka iyo qaabka hadda uu shaqeynayo meeshan waxa jooga nimankii waaweynaa ee isaga ka waaweynaa yaa isku haysta isagoo marka wuxuu un sameyn karaa inuu maaragtay xogaa dhaqaale ah iyo Ethiopia hadda maanta hubka waxa uga daran waa Ruushka iyo Shiinaha iyo kuwii maaragtay gaaladana ahaa maxaa gaaladan kalena ay macmiilay isagu waxa weeyaan waa haddana isagu sibu u sii faquuqan yahay waa muslim lama ogola dawlad muslima oo awood yeelato oo adduunka oo dhan ka soo baxda Ruushku wuxuu ka cadeysnaa dhibkii maartay Armenia gaaray ee Turkidu ay ku sameeyeen tiibu ka cadeysnaa tan hadday ku soo caanbaxday waxa weeyaan wax kale ku noqonaya marka ma rabaan waxay rabaan qolo waliba waxay rabtaa inay iyadu muuqato isaguna wuxuu rabaa inuu isagu muuqdo laakiin markay noqoto dawlad islaami ah ama dawlad islaam oo bulshadeedu 90% wax ka badan muslim uu yahay waxa weeyaan kuwan kale tan haday maanta shalay bay guuleysatay daraad bay guuleysatay maantana haday guuleysatay wax kale soo baxaysa marka istiraatiijiyada iyo qorshayaasha maartay siyaasadeed ay leeyihiin dadkan ilaahay dunida ugu itaalka roonahay waxyaalo badan oo xeerinayaan baa jira marka Turkigu wuxuu u sameyn karaa Ethiopia inuu ka warto xogaa lacag siiyo inuu siiyo Ethiopia hub waa yaala ka ay haysataan waligii iyo waaqi ka dhamaaneen hadii maartay hub loo baahan yahay way de wixii inta dhaafsiisana waa hubkii wax gumaadaya in la siiyo way aad iyo aad baa bayrakhdar iyo waxyaalahan kalena de dawlad mas'uulaha la siiyo dawlad mas'uulaha aan mas'uuliyad ba qaadi karin aad baa maasantay waxa jira wafti kale oo Ethiopia u dirtay dalka Jarmalka maxay yihiin waftigaas iyo waftigaas horta de Ethiopia hadda waxaad moodaa waa neef gowracan geeda kama gudo way dawladihii maalmo aan cunaqabataynta ku soo rogay iyo haddana isku qaadeen oo aadayaan meel walba u socdaan wax dan oo cid kale yihiin ma jirto waxa weeye niman xishooyin dagaal xeelo kama raacda la yiri moogtahay Jarmalka waxa aaday wafdi uu maartay isugu jiray ganacsati iyo adigu waxyaalo la aruuriyay oo hogaaminayo madaxa sirdoonka Ethiopia sirdoonka Ethiopia ninka hogaamiye madaxweynaha hore deegaanka Axmaarada waxa la yiraahdo tamaksan tiraahun wax noocaas la lahaa soo garan kaasa marka meesha wafdi uu hogaaminayo oo isugu jira adigu ganacsato iyo waxyaalo noocaas isugu jira yaa adigu meesha aaday marka de wafdigaasi waxay un la soo kulmayaan maartay jaaliyada Ethiopianka ee meelaha jooga iyo kolba adigu wixii ay u fududaato laakiin de dawladda Tamaskanku waa tamaksan tiraahun waa madaxweynihii hore deegaanka Axmaarada haddana ah maxaan ku dhahaayo madaxa sirdoonka dalka Ethiopia waa ninkii Mustafa madaxweynaha ka dhigay Mustafa Cagjar ninkii madaxweynaha ka dhigay hay marka madaxweynuhu ah soo abi muna ma abi waxa kama dhigay ninkii Mustafa madaxweynaha ka dhigay haddana uu madaxweynaha u yahay way ninkaas way marka waa nin siyaasadda Ethiopia xoogaa adoo dadka maaragtay ku dhex filqan ku jira marka hadda de kulli gaala qaabili maysa kale oo meeshan dadka hadda uu u tagay way diidan yihiin qorshihiisa ninkii yiri waa taa kale Tigreega laba geeriyood bay ku xukuman yihiin ninkii yiri waa iyagoo cararaya inay dhintaan oo ay dhintaan iyo in iyagoo dagaalamaya ay dhintaan mooyaane wax kale oo Tigreeg u yaala ma jiro markii dagaalku bilowgii dagaalka wali inaan dagaalku bilaaban dagaalku bilaaban ninkii erayga yiri buu ahaa eray bixinta isagoo madaxweynaha deegaanka Axmaarada iyo Tigreeg laba geeriyood bay ku xukuman yihiin wax kale oo u yaala ma jiraan waa in ay dhintaan iyagoo dagaalamaya iyo in ay dhintaan iyagoo cararaya ama guryaha loogu tagay labada bay ku xukuman yihiin iyagoo dagaalamay inay dhintaan iyagoo ama baxsanaya ama guryaha ku jira inta loogu tago in la gowraco wax ka dhaxeeya male ninkii yiri buu ahaa dagaalka isaga abaabulay talada dalka Ethiopia ninka ay ka go'do weeye rasmiyan waa Axmar marka waa Axmar weeye waa waliba kuwii waxa weeye waaweyna kala weyn yihiin moogtahay balan dhamaqa kuwa isaguna marka ma hawlaha sirdoon buu tagay mise waa kulli shaqadiisa isagu de wafdi buu hogaaminayay marka wafdi balaaran oo ganacsato iyo waxyaalo iyo wadaado iyo wax adigu isugu jira oo isagu uu horkacay waana wadaadii marka Jarmalku jooga hadda Jarmalku aaday waana wadaad ninkan oo
وقيساسك كجرا وانا سردونكي وانا مدحويني وانا نكي ملكيله وي كان هذا كان maxaan ku idhahdaa dhamaqa oo kaliya waa xamaarada yarka wasiirka arrimaha dibadda ah isagu waa de kan ku sheegay dhamaqa waa ra'iisul wasaare ku xigeen waana wasiirka arrimaha dibadda waa muslim hagu aadha wuu iska joogaa ma aha milkiile ma aha isagu milkiile ma waa isagu waa second citizen way aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac gala daawadayaal intaas aan ku soo gabagabeeyay barnaamijka tan iyo kulan dambe sidaas iyo fi amaan illah